orgigu wuxuu u maado dhaay oo diif ka duraanay oo suur baaqro yaa xayawaan oo dhaa inta qaribta nafsi wa qaribta nafsaga oo dhahay waswaas ayaa qalbigaaga ku jiro waswaaskaas wuxuu sameyn karaa inuu ku dhaho hebel sidee adiga kaaga sareeyay meeshaas waxaa ka imaan kara quurweyto wareede inaad quusataa la rabaa oo aad fahamto da'da aad jirto inta aad raadin lahayd marka hinaasaha waxa keeno waa nacayb iyo jacayl labadana waxay sal ku leeyihiin raad ay ku leeyihiin qalbiga bini aadamka inuu waswaas ku dhasho nacaybkan wuxuu ka soo maaxdaa qalbi wasaqaysan waad mahadsantahay guuleed balse intaan ka jawaabay su-aashaada asxaabta haddii aad hore noola joogteen waad ku mahadsantihiin haddii aan ugu cusubtihiin subscribe saara like saara share dhaha comment ka soo bixiya waxyaabo badan oo aad jeceshiin aan ka hadalna waan soo weydiin kartaan insha allahu tacaala guuleed markaan usoo noqdo su-aashaadii jacaylkii nacaybka farqi weyn ayaa u dhexeeyo jacaylka wuxuu ka yimaadaa ama uu ka soo maxdaa qalbi nadiif ah ee wax tabaya nacaybkan wuxuu ka soo maxdaa qalbi wasaqaysan shaydaan iyo waswaasna luku leh marka farqiga u dhexeeya jacaylkii nacaybka waa qalbi wasaqaysan iyo qalbi nadiif ah way iska fududahay hinaasaha iyo maseerka hinaasaha ama maseerka waxa keeno aad ayay u fududahay qofka markii uu wax isu qaybo waxbuu isu qaybay ama qof buu noloshiisa siiyey marka uu qof kale ku arko waxaa imaan kara hinaaso qof adiga iskulood aatiin ayaa waxaad ku aragtay asigoo heer gaaray oo maasha allah ama gaari kala jiidan wato oo waswaas ayaa qalbigaaga ku jiro waswaaskaasna wuxuu sameyn karaa inuu ku dhaho hebel sidee adiga kaaga sareeyay meeshaas waxaa ka imaan kara quurweyto masayr ayaa ka imaan karo waxaa la rabaa markaa aragti qof walaal oo heer gaaray inaadan ka hinaasin oo tiraahdo ilaahay u barakay wixiisa waa qalbiga nadiifkee oo daacadee oo wanaagsan hinaasaha waxa keeni kara mar kastana waa shaydaan waa ibliis jacaylka iyo nacaybka labadana hinaasaha way keeni karaan haddii aad qof jeceshahay qofkaas inaad u hinaasto wuu ku imaan karaa haddii aad qof necban tahayna hinaasaha wuu ku imaan karaa nacaybkaas zaa-iday dartiis marka hinaasaha waxa keeno waa nacayb iyo jacayl labadana waxay sal ku leeyihiin raad ay ku leeyihiin qalbiga bini aadamka inuu waswaas ku dhasho for example markaan ka soo qaadno nin ayaa naag qabo naagtiisa way isguursadeen jacayl isku guursadeen naag kale ayuu guursaday hinaasaha wuu ka imaan karaa laakiin haddii ciida qof fiican ay tahay qof qalbigeeda uu saafiyayda tahay waxaa macquula ayada laftigeeda inay ninkeeda tiraahdo xabiibi aniga marka garab xirina noqday saaxiib ciyaala noqday qof kale inaan kuu guuriyo ayaan rabaa qalbigaas waa qalbi nadiif ah qalbi hinaas ku jirna maahan hataa ninkaaga haddii aad naag kale u guuriso specialist buluuq aad tahay qof iimaan leh jannadana waxay ku jirtaa qalbi nadiif ah iyo niyad saafi oo lala yimaado waa ku salaama guuleed guuleed waa mahadsan tahay nin oo kale arrintaas ma gasho dumarkaba way jiraan qaar ayay u yihiin in ay guursadaan balse way kala fudud yihiin waxay kala fudud yihiin hadda kala qaadaynaa markuu nin duqa oo 70 sano jiro uu guursado gabar 20 jir ah ama 18 jir ah that means ana waxay ila tahay wax problem inaysan ku jirin sababtoo ah ninkaasi odaga ah ee gabadhaasi guursaday inkastoo laga fiican yahay gabar uu awow u noqon karo inuu guursado haddana ragga waa damac badan yihiin waa ay dhacdaa badanaan lalama yaababa nin odayo oo qof yar guursaday laakiin waxaa aada loola yaabaa qof waayeela oo dumar ah in ay guursato wiili ayay u noqon karto aniga laakiin waxaan dhihi lahaa dadkaasi waa maquustayaal reede
inaad quusataa la rabaa oo aad fahamto da-da aad jirto inta aad raadin lahayd gabaraa awow u noqon kartid ama wiil ah ayay u noqon karta aad raadin lahayd inaad quusato aniga kulley saas ay fiican ma quustanimada waa laga fiicayaan quuso da-da aad jirta gadaal u fiiri in qofkan yarkaana mustaqbalkiisa ha ku dheelin dhuuxiisa ha cireynin runtii guleed anigu saasaan dhihi lahaa waxaan dhihi lahaa maquustanimada la iska dhaafo qof kastaba jiilkiisa hala jaan qaado tallaabada hala qaado qof markaan ani awow noqdo waa inaan ayay raadsadaa adigana markaad ayay noqoto waa inaan awow raadsataa ma ahan kuwa aan dhali karin inaan ku laabano waa maasantaa guleed wallaahi caafimaad daro insurance to the health caafimaad daro sababtoo ah qofkan isku neefba ma ahdin qofkani isku neef ma ahdin waxaad ka ciroobaysaa dhuuxa qofkaas adiga wuu kugu yaraana asiga wuu yaraana markuu nafaqadaada dhuuqo wuu yaraana ama ee nafaqadaada dhuuqdo way yaraane adiga adoo yar ayaa awow ekaan doontaa sanado kadib ul ayaad qaadan doontaa nin ayaa hadda kahor wuxuu arkay orgey wuxuu ku arkay xeeb ku arkay nin carab ahay orgey la riyo boodaya ninkan wuu shaqaystay guri dabaquu samaystay hoosuu dukaan ka dhigtay marka albaabka dabaqa dukaankiisa laga galaa markaasuu islaanta wuxuu dhaha haddaa baashaal rabtid camis waxaa leedhahay cami cali ana abqaa zayd leedheh banaanka lasoo istaaga waxaa cami cali ana abqaa zayd oo fuulaya duqa cami cali ana abqaa zayd woo fuulaya cami cali ana abqaa zayd woo fuulaya 3 sano 4 sano markuu saas ahaa maalin dambe uu xeebta ku soo leeyay soo baakorood orgigu wuxuu maad dhaay oo diif ka duraaray oo suur baaqro yaa xayawaan oo dha inta qaribta nafsi wa qaribta nafsaga oo dhahay xayawaan oo dha nafsadeedana waa qaribta taadana waa qaribta oo dhahay marka dumarka iyo rabaashaalka badan hada abadsatid ada kub gubata amal isku laameys baashaalkana abadsanin qofka daada ka weyn iska ilaali waan salaamaya